kulan wacan daawada meel walbo aad joogto waxaad kusoo dhawaataa janaal kale waayo films wadaana kale kusoo gudbiya maqaalo la xiriira arrimaha Bollywoodka. maqaalkeena maanta waxaan kusoo qaadanaynaa xidig reer Bollywood haddana ah model leh jir soo jiidasho ah oo ay dumarku isku tilmaamaan. waa xidig 2012 Bollywoodka kusoo galay filimkii Student of the Year, intaas kadibna galay jawi degan inkastoo filmadiisa ugu dambeeyay aysan guulo waaweyn gaarin. jilaagan aan ka hadlayno qof kale ma ahe waa Sidharth Malhotra oo kamid ah aktarada Bollywoodka ka tirsan. xidigan ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay arrimo badan oo kamid ah filimada u diyaarsan ee Bollywoodka iyo modelkaba. aan u dhaadhacno wareysiga uu siiyay BBC Asian Network uu kaga hadlay waxa ay dadka ka aaminsan yihiin oo ah in shaqo culus aysan qabanin marka loo eego marka uu qof familkiisa uu kaga horeeyo Bollywoodka. hagaag waxaan u maleeyaa in dadka ay haystaan fikir ah in wax walba noola qabtay ama aad u fududahay oo ay naga dambeeyaan dad culus. dabcan koox walba waxay leedahay qeybo, laakiin dhabtii shaqadeena ma dhamaato markay hoygeena ku laabano, waayo waxaa jira wax la sii diyaarinayo, cunto dheelitiran oo la qaadanayo, waana inaan raacnaa taliska. waxaan si joogto ah u qabanaa shaqadeena markaan guriga joogno, marka ma jirto waqti fasax ah. Sidharth Malhotra ayaa la weydiiyay inuu ku adag tahay inuu qabto door lagu qasbayo in muuqaalka wax laga bedelo maadaama uu yahay qof model ah oo fashion ka sameeya. wuxuuna ku jawaabay, hagaag waxaan u maleynaa ahaanteeda waxaan isku dayay inaan jebiyo aragtida inaan sameeyo doorar ku saabsan muuqaal kala duwan. taasi ayaa ah isku daygayga iyo halgankayga. waxaan filaa inay ka bilaabatay filimkayga Ekfalen oo aan ahaa qof awood leh haddana dareen leh oo aan dhaho marabo inaan timahayga kor u shaleeyo xilliga duubista filimka iyo inaan rabin qof gar weyn leh, waana inaan sameeyo door walba ay ka heli karaan ama ay jeclaystaan. ugu dambeyn xidigan ayaa ka hadlay in uu door bidayo inuu sameeyo filim leh doorar kala duwan oo dadka soo jiita. waxaan had iyo jeer isku dayaa inaan doorto sheeko ka duwan doorarkaygii hore haddii ay tahay adduun ama qaab. taasi ayaa ah sida aan u ahay shaqsi kusii wada inuu timihiisa wax ka bedelo, garkiisa iyo wax walbo. 3 bil ilaa 3 bil waxaan ahaa qof qudaarta daa'imo ama caano cabo, laakiin haddii aad ila kulmi lahayd 6 bil ka hor waxaan cunayay doorada, waayo waxaan rabay inaan noqdo qof muruqa leh oo ficilo action ah aan sameeyo. waana ka helay qof ahaan, wax caajis ah kuma dareemin. mar walba oo aan isku fiiriyay miraayadan qof kale ayaan ahay. Sidharth Malhotra filimkiisa ugu dambeeyay waxa uu ahaa filimka Marjavan oo uu la waday xidigta Bollywoodka ku cusub ee Tara Sutaria iyo sidoo kale xidiga kale ee Ritesh Deshmukh, waana mid guul dareystay. inta ayaan ku soo xiraynaa mowduucina maanta kaga hadlaynaa xidiga Sidharth Malhotra. haddii aad ka heshana la wadaag asxaabtaada.